Saaxiibayaal, waxaan idinla wadaagaynaa sababo muujinaya in carruurta hadalka badan ay guulo gaarayaan. Carruurta hadalka badan waxay mararka qaar ka caraysiiyaan waalidiinta ama dadka xanaaneeya, balse waa inaad ogaato in faa'iidooyin ay leedahay arrintaasi. Rabitaanka ah in kor u kaco canuga oo uu hadlo waxaa lala xiriiriyaa dabeecad wanaagsan. Cilmi baaris ayaa muujinaysa in carruurta hadalka badan ay wax badan fahmaan ka hor inta aysan waxbarashada bilaabin. Faa'iidadu way soconaysaa ilaa dugsiga hoose, dhexe, dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed iyo goobta shaqada. Halkan ayaan saaxiibayaal idinkugu soo gudbin doonaa sababaha keenaya in carruurta hadalka badan ay noqdaan kuwo guulo gaara marka ay weynaadaan. Waxay yeelanayaan xirfado la xiriira isticmaalka erayada iyo jumlooyinka. Waa faa'iidada iska cad ee muuqato in carruurta hadalka badan waxay si dabiici ah u noqonayaan kuwo garanaya hadalka, ujeedada iyo isticmaalka erayada. Waxay yeelanayaan xirfadda fikirka degdega ah ee caqliyeysan. Sidoo kale waxay helayaan jawaabaha ugu fudud. Carruurta hadalka badan sababta ay aad ugu hadal badan yihiin waa inay xiiseynayaan oo ay doonayaan inay wax badan ka ogaadaan dunida iyo nolosha. Waxay yeelanayaan xirfadaha la dhaqanka bulshada. Sidoo kale carruurta hadalka badan waxay aad u jecel yihiin inay bulsho badan ay dhex galaan. Waxayna jeclaanayaan asxaab aad u badan. Koox adag oo kugu xiran oo saaxiibo ah ay yeelanayaan. Waana arrinta ugu wanaagsan ee lala koro. Taa waxay ku adag tahay dadka hadalka yar. Arrimo badan ayay ka qayb qaadanayaan. Carruurta hadalka badan ma awoodaan inay muddo iska aamusnaadaan. Waxay u geysanaysaa dhibaato, balse waa muhiim in la baro xilliga ay wanaagsan tahay sheekada iyo hadalka iyo xilliga aan habboonayn. Taa waxay noqonaysaa faa'iido badan. Arrimo badan oo ay ka hadlaan ay hayaan. Inta badan carruurta ma awoodaan inay 5 daqiiqo hadlaan, balse kuwa hadalka badan waxay sheekayn karaan ilaa saacad, taasoo muujinaysa inay hayaan wax badan oo ay ka sheekeeyaan. Waxay leeyihiin awood badan, mana daalaan. Sidoo kale wax kasta way xiiseeyaan. Sidoo kale waxay u badan tahay inay waalid fiican noqdaan marka ay weynaadaan. Qodobada iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa saaxiibayaal ka mid ah saameynta ama sababaha muujinaya in carruurta hadalka badan ay guulo waaweyn gaaraan. Saaxiibayaal, muuqaalka inoo sheer gareeya suuna dhawaad mahadsanidin.